بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ مانتا وحاوي سيدي لواتن بشهر رجب كوني أفر بقول صوتني يساقالو كوبيغان شاني طبان كابريل لابدا كوني سيدي طبان موضوع عن جاله مانتا إنان إذن لو ذاق عنوان كسو وحاوي أفوينكي دباتوينكي قرنك الصومالي بربوريي الرقاديي maxaa sababo ama maxay salka ku hayaan sida aynu la socono muddo 7 sano ee caalamku wuxuu inoo yaqaanaa Soomaaliya inay tahay the most failed state in the world and the most corrupted country in the world as well dalkii burburay ee dib u dhacay ee caalamka ka haray dalkii ugu liitay iyo dalka ugu musuqmaasuqa iyo tuugada iyo xatooyada badan arintaas bulshada Soomaaliyeed waxay ku abuurtay walwal iyo dareen Soomaaliya inaysan ahayn qaran xor ah ay tahay dal inta la burburiyay marka la gashay maxmiyad ama toos aan noqoto ama mid dadban ha noqoto dabcan waxa keenay dareenkaas waxa meeshii ka baxay dhammaan astaamihii lagu yaqaanay qaran xor ah astaamahaas oo ay kamid yihiin qaran xor waxa lagu yaqaanaa inuu leeyahay soohdimo iyo xuduud aan lagu xadgudbin 7 sano xuduudii Soomaaliya bad iyo biri iyo jawi intaba waxay ahayd baylah ida la cidi doonta ayaa ku xadgudbaysay ولينا دالكو حالدا أيو كسوغي قرن حرا وحال لغو يقانا إنو ليهي حكومة دي مامل كتما دا ربيتان كالشعب كده حكومة داسو مركا أيضو مدح بنان مامل كدال كده ديغان كده حكومة داسو حقيقين كده كيان كي دولة نمو أي كمي تهي إني إلاليسو حقوق دا الشعب كده أما فردها أهادو أما مجتمعها أهادو حكومة داسو مركا بحين كده adeegyadii bulshadeedu u baahnayd isla markaana ilaashan kara xuduudeeda iyo kheyraadkeeda iyo deegaankeeda iyo sharafkeeda iyo karaamadeeda waxaynu la soconaa maanta dalkii Soomaaliya in loo burburiyay contentious tribal enclaves buqcado qabaa'il ka taliya qabiilka kale cadow ku yahay isagana iska ilaalinayo xaaladda rasmiga ah ee dalkii ka jirta waxa weeye Soomaaliya maanta inay magan u tahay ciidamo shisheeye maalinta ku xigta lagu soo daabuleynahay cutubyo hor leh iyadoo marka lagu andacoonahay in dalka xasilinayaan isla markaana ilaalinayaan xukuumad iyo dawlad rasmi oo aan dalkii ka jirin cida laga ilaalinayna marka inay tahay shacabkii iyo dhalinyaradii marka ay ahayd ayagu inay dawladooda iyo xukuumadooda iyo madax banaanidooda inay ilaashadaan xaqiiqduna waxa weeye muddadii ciidamadaas ay dalka joogeen yaani colaada iyo dhiiga iyo dib u dhaca iyo xasarada dalka inay si ziyaada maahan haba yaraatee wax ka soo raayay inay si jirin qarnimadeen maanta waxay maraysaa caalamkii inuu ku tartamahay ciidii Soomaaliya sidii ku noqon lahayd bases military oo markaa kheyraadkii iyo deegaankii iyo dadkiiba isku si loo boobahay dawladnimadeena waxay maraysaa in loo ka dhigay dastuur iyo nidaam dawli ah casabiya 4.5 iyo tribalism oo shacabkii oo arinta ka biyadiidan sanka in leena ka gashay qarnimadeena waxay maraysaa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya in muwaadiniin Soomaaliyeed ayagoo xirxiran oo jeebaysan in goboladii iyo caasimaddiiba isku si inta looga dhoofiyo cadow in gacanta loo gelinayo qarnimadeena waxay maraysaa iyo dawladnimadeena afraad iyo kooxo wadamada khaliijka iyo ama hay'adaha caalamiga ay lacag soo siiyeen oo markaa ku yimaadaan nidaamka qabliga ah iyo corruption iyo 4.5 oo marka inta villa Soomaaliya lagu soo xareeyo kooxahaas marka ay u dhaqmaan sidii brokerskii oo kale dalaaliin oo koox walba ay u dalaasho cidii Soomaal gashatay runtii waxa la soo oran karaa burburka iyo dhibaatada iyo dib u dhaca dalkii ka taagan iyo xasilooni darrida ama siyaasad ha noqoto ama magaranaysaa nidaam dawli ah ha noqoto wadaarkaysaan isqabqabsiga aan marna dhamaanahayn su'aashu waxa weey aafada intaas leego maxay sabab waa maxay salka ku haysa si marka hadaba arinta tan aynu si xigmad leh ugu lafaguro aynu taariikhdeena ka faa'iideysano way taariikhdu waxa weey cilmi iyo kanzi iyo kayd aan laga maarmayn walidaalika marka nusuusta Ilaahay akhrido waxaad arkaysaa quraanku in badan wuxuu soo celcelinayaa taariikh fara badan fi suurati al-a'raf baylahay ayad quraan wuxuu ku leeyahay faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun nabi maxamed alayhi salatu wasalaam wixii qisas ee taariikh ee Ilaahay waxay kuugu sheegay aduna ummadaada xogmoogaha u xog waran maxay tahay xikmadu la'allahum yatafakkarun waxay mudan yihiin markaad u xog waranto marka inay la yimaadaan tafakkur oo aqligoodu shaqeeyo oo marka awood ay u yeeshaan critical analysis iyo critical thinking
آيات كلي إلهي وحكوليه في سورة الهود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وحنكوغو شيغينا أنبيادي الرسوشي كاهو ريسي تاريخ ذوضة سي مركا أنو قلبك أغوصونا مركا معناها آياتها لغا فهمها يوحا كمدا تاريخ ذو قفك بشر كأما بني آدم كعقلكيسا يا مسكحديسا يا تفكركيسا يا قلبكيسا يا قيمكيسا يا مورال فاليوسكيسو إنيسان تاريخ ذا كمارمي هذا بس مركا إنه مسكحه فني قلبي السليم إنه وحوي إنه تاريخ ده إنه كفايدي سنة وحن مركا جعل هنا دول استاجو لبن نقطة تاريخية ندوا حاوي مقال نيني توبيانا وكذا هذي بربر كي قرن كالصومالية نقول كلنا وحاوي دباتوين كيافوين كيعذر هذه إنه كحلي استعمار كيسي هوري سياسته سي أول عالم كشقين هاي هذا مركا نقول ظهر كوهر مرو مقالك كانوا أفكار إنجليزي دو كقرية هي واحد كهليسا إنترنت عنوان كيسو حاوي Ethiopian Foreign Policy and the Ogaden War the shift from containment to destabilization 1977 to 1991 سياسة دي خارج كإثيوبيا يدقال كي أوغدين أما سومالي قلبات إثيوبيا ومركا كبد الشيء سياسة دي هيد إسكعابين إني بربوريسا قرن كي سوماليا تاريخ دا سو كو جهن كونيا سقال بقولي تدواتن كي إلى كوي سقاشن مركا الله سو كوبا نحو كمقالك كنيكا كانوا حلية قرن كي سوماليا وحا بربوري دولة إثيوبيا وليبو حكوان دعونها هي أرمها كان وكهالي إنو كسو حكتي فايلاليا أركايفز كونفيدنشيال سرعة أو سكهلي وزارة خارج كي إثيوبيا وأسوي هرتيان عدونا دي بدو وصو صارين نكانوا مركو حلية قرن كي سوماليا وحا بربوري إثيوبيا وحي سوماليا وبربوري سيبو يري هل هدف أو أها إني كجماعة أو كسيحته أرميه حكومته الصومالية هي شعب كصومالية بمدة فرح بدن وكتامة هي وكوجهنا إني حريان واللصو النقدان حدودي شعوبتي استعمارك وكبوبي والصومالي قلبيد أي كميدة هاي إثيوبيا وحي الصومالية بربروسيبي مركي تضبيطن كي عيدن كالصومالية لغا إتال رونادي تاريخ دا لغا بلابو سياسة دي إثيوبيا ومركي هوري أهيد إني الصومالية إسكعابيسو وحي يسوبد الشيبي مركا إني الصومالية بربروسو أرمي مركا إثيوبيا أي كفايدي ستي وحا كميدا هابو يروحي لو أورنجيري كول ووركي دقالكي قبوبا wuxuu sheegay 5 dawladood inay ayagu colaadii Soomaaliya Itoobiya ka dhaxaysay ay hurinayeen isla markaana ay faraha kula jireen xiisadii labada dal ka aloosnayd dalalkaas oo kala ahaa midowgii Sofiyeedka Mareykanka Ingiriiska Talyaaniga iyo dawladda Masar arrimihii marka wuxuu yiri Soomaaliya gudaheeda ka dhacay Itoobiya ay ka faa'iideystay waxa kamid ah markuu ugu horeysay dagaalkii oo Soomaaliya dhaxalsiiyay 3 dhibaato aad u dhib badan mid dhaqaale ودالكي مركو دقالكي كسو بحي ووجهي حالات دقالو آذو دي بدن مid siyaasadeed oo Itoobiya ay ku guuleysatay in Afrika iyo caalamkaba ay ka dhaadhiciso gardarradu inay lahayd dalka Soomaaliya iyo xaalada saddexaad oo ah niyad jab ku yimid shacabkii Soomaaliyeed iyo ciidankii Soomaaliyeed waxa inta dheereyd buu leeyahay siyaasadii Maxamed Siyaad Barre oo ku salaysneed cunfiga siyaasadaas oo markaa bar tilmaamsatay iyo qabaa'ilka qaarkood taasoo waxay keentay biyo markaa in kalsoonidii shacabku uu ku qabay dawladda inay aad iyo aad hoos ugu dhacdo laakiin arintii ugu dhibka badneed waxay ahayd biir markii Itoobiya ay ku guuleysatay inay soo hubayso jabhada Soomaaliyeed oo markaa ay hogaaminayaan kooxo kamid aha ciidankii qaranka Soomaaliya jabhadaas oo markaa dagaal ku soo qaaday buu yiri deegaankoodii dalkoodii iyo dawladdoodii jabhadaas waxaa kamid ahaa jabhadii la oran jiray SSDF SNM USC SBF arintaas marka waxay ahayd buu arintii soo dadajisay dawladii Maxamed Siyaad Barre ama qarankii Soomaaliyeed inuu halka ku burburo wuxuu ku soo gabagabeeyay Itoobiya burburintii ay Soomaaliya burburisay kama faa'iidin laba arrimood awgeed marka ugu horeysa dawladii ama xukuumadii arinta ku guuleysatay oo uu hogaaminayay ninkii la oran jiray Mingista Haile Mariam تي محمد سياد بري أفر بلود بي كدنبيس أرنت لبعضنا وحاويه بي إلى يمانتا إثيوبيا وحي لدي بنتهاي سيدي مركا أي أو حكمين لهايد أما ولفل قلي لهايد أما أي مقرنيسا أمارين لهايد دباتوينك أوغا إيمانا هاي بربورنتي أي بربوريسي قرنك الصومالي أرما مركا تاريخ دانا إنو كفايدي سنين وحاكم دا إنو مركا هو رفهنا سببتا كانتي إن
waqtigii Soomaaliya ay burburka gashay in siyaasadeedu si toos ah u hoostago xukuumadda Itoobiya waxaynu kaloo ka faa'iideysanaynaa sababta keentay markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya in muwaadiniin Soomaaliyeed oo xirxiran oo jeebaysan inta caasimadii Soomaaliya laga dhoofiyo in Itoobiya gacanta loo gelinayo kuwa waxa sameynayna ay yihiin kuwa sheeganaya mas'uuliyiin Soomaaliyeed waxaynu kaloo ka fahmaynaa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya kuwa sheeganaya mas'uuliyiin inay yihiin inay ummadda inta soo hor istaagaan marka ku hadaaqaan oo yiraahdaan halgamadii ummaddu ay soo gashay laga soo bilaabo qarnigii 17aad waqtigii Axmed Gurey ilaa iyo burburkii waxay ahaayeen argagixisannimo ayadoo marka laga haybiisanayo oo laga baqahayo xukuumadda Itoobiya waxaynu kaloo ka faa'iideysanaynaa hadafka xaqiiqiga ee rasmiga ah ee Itoobiya iyo canaasirta isticmaariga ahayd ee arintan ku gacan siisay ay ka leeyihiin burburka Soomaaliya oo ah Itoobiya inay dhaxasho oo la wareegto deegaanka Soomaaliya iyo xeebta dheer oo cid ilaashanaysa aysan jirin Soomaaliyana sida ay arintu ku siqayso ay noqoto gobol kamid ah gobolada Itoobiya maadaama waqtigu marka ciriiri yahay nuqdada tan intaas ayaan ku soo koobaya nuqdada labaad ee ah cudurradii aafooyinka isticmaalka aynu ka dhaxalay nin la oran jiray Francis Fanon oo ahaa nin halgamaa oo runtii ka qayb galay halgankii isticmaalkii Faransiiska ee Algeria lagaga hor yimid isagoo Algerian ma ahayn sida la socotaan wuxuu u dhashay jasiiradan Martinique ee Caribbean-ka ninkaasu dhakhtarna uu ahaa ku takhasusay cudurka dhimirka isla markaana qoraab uu ahaa wuxuu ka tagay runtii baxthi iyo kutub fara badan oo ka hadlaysa aafooyinka iyo cudurrada isticmaalka laga dhaxlo kutubtiisii waxaa ka mid ah kitaabkii la oran jiray Dying Colonialism isticmaalkii dhimanahayay The Wretched of the Earth musiibada arlada oo isula jeedo aafooyinka iyo cudurrada isticmaalka laga dhaxlo iyo Black Skin White Mask jirkii madooba iyo shukadii cadayd oo isula jeedo jiilasha isticmaalku uu barbaarsho wuxuu yiri markaad aragtaad isleedahay waa dad madmadow oo Afrikaan laakiin markaad u dhabagasho dhaqankooda iyo suluugooda iyo qiyamkooda iyo afkaartoodu ay tahay tii isticmaalka ninka kan marka xigmadiisa waxa kamid ah wuxuu yiri imperialism leaves behind germs of fraud that must be clinically detected and removed from the land and from the minds of the people as well isticmaalku wuxuu ka tagaa buu yiri germs iyo cudurro xun oo loo baahan yahay in loo baaro sida cudurrada loo shaybaaro isla markaana laga zuuliyo oo lagala dagaalamo arlada siiba maskaxda dadka nasiib darro Soomaali hadaynu nahay inaynu cudurrada zuulino iska daayay xataa waxaad isleedahay ma inaan fahmin cudurradaas waxay yihiin taasna waxa daliil u ah anoo maanta joogna qarnigii 21aad sababta ra'iisiga ah ee runtii ummaddu ay ugu kala qoqoban tahay qabaa'ilka iyo colaadda ka dhaxaysa iyo nacaybku waxa la oran karaa waxay salka ku haysaa cudurka asaga ah aynu isticmaalka ka dhaxlay afooyinkii isticmaalku waa dhib badnaayeen labadii aafo ugu dhibka badneed waxay ahayd markii ugu horeysa kala qaybintii uu kala qaybiyay oo uu kala firdhiyay ummadda deegaamadeedii iyo cududeedii iyo caqligeedii iyo khayraadkeedii oo uu markaa shan u qaybshay iyo dagaalkii uu ku qaaday diinta iyo aqeedada iyo qiyamka iyo dhaqanka suuban iyo akhlaaqda wanaagsan waayo hadduusan sidaa yeelin markaa uma suura gasheen siyaasadihiisa foosha xumaa ee ay ka mid ahaa divide and rule qaybi oo xukun iyo policy of assimilation inuu dadka ku khasbo oo gasho afkaarihiisii iyo qiyamkiisii iyo dhaqamadiisii haddii uusan dagaalka ku qaadin diinta dadkana sidaas u naafayn uma suura gasheen walow umadu ay ahayd dad muslimiin oo runtii halgamo fara badan oo naf iyo maalba ay hureen ay kala hortageen isticmaalka si marka ay u ilaashadaan diintooda iyo deegaankooda iyo dhaqankoodaba haddana waxa la oran karaa isticmaalku wuxuu inoo geystay afooyin aad u dhib badan waxaanuu uu ka faa'iideystay waxa kamid ah laba arrimood mid waxa weeye ummadda oo thaqaafadeedii diinta islaamka aad iyo aad ay u hooseysay maadaama dadku ay ahaayeen dad intooda badan reer miyi ah oo duurkooda isaga jira sida maanta ba aynu wali reer miyi ugu badannahay oo in badan isku khaldahayay xogaga yaraayo islaamka ay ka fahmeen iyo caadooyinkoodii jaahiliga ahaa taas waxay ahayd ducfi runtii isticmaalku uu ka faa'iideystay arinta labaadna waxay ahayd barbaarintii uu ku guuleystay inuu barbaariyo jiil markaa ay ku fahma oo xambaara oo runtii
ama ha u qaadaan ulakas ama ha u qaadaan arrintan si jahliya runtii jiil markaa iyaku markuu isticmaalku meeshii ka tegay afkaartoodii iyo ahdaaftoodii xaqiijiyey arrintaasna waxay ahayd dhibaatadii kale oo isticmaalku uu ka faa'iidaystay marka waxaa la oran karaa runtii dhibaatadii ugu weyneyd waxay dhacday 1960kii markii ilaahay isticmaalkii ina ka kaxeeyey oo aynu xorriyaddii helay oo markaa runtii loo baahnaa mujtamacu inuu la yimaado karti iyo geesinimo iyo caziimo markaa ay ku saxaan cudurradii iyo dhibaatooyinkii isticmaalku inoo geystay arrintaa waynu ku fashilan waxaynu markaas u hanqaltaagnay afkaarihii iyo canoniskii iyo policieskii iyo ideologieskii isticmaalku uu ka tegay ayaynu u hanqaltaagnay oo kuwaasoo ka mid ahaa wixii la oran jiray secularism nidaamkii laadiiniga ahaa ama waxaad tidhaahdaa capitalism nidaamkii ra'simaaliga ahaa ama western liberal democracy dimuqraadiyadii reer galbeedka waxaa doonta ugu yeer arrintaasu marka waxaa la oran karaa waxay ahayd meeshii wadaanta xarigeedu uu ka qalloocday soomaalidu waxay tidhaahdaa wadaantii ma garanaysaa salka ka qalloocataa fayga ama afka kama toosto that was the turning point waxaa la oran karaa musiibada ummadda gaadhay meeshii ka bilaabatay halkaasay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur-aan wuxuu ku leeyahay fastamsik biladii uuxiya ilayka innaka calaa siraatin mustaqiim nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam diinta tan iyo manhajka kan ilaahay xaggiisa kaaga yimid ku fara adeegyuusa kaa fara baxsanin waxaad ku sugan tahay dariiq toosan macnaha aayadda laga fahmaya waxaa ka mid a haddii markaa diinta tan iyo manhajka kan aad sii dayso markaa waxaad halis u tahay inaad la kulanto dhibaato iyo burbur iyo baaba iyo magaranaysaa xaaladaha maanta aynu ku sugannahay oo aynu faraha ku hayno oo kale ilaahay markaa aayad kale u raacshay wuxuu leeyahay ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون دينتان وحنو كاغيه لي شريعة داس ومركا أيضو كاملة أو شاملة أو وح كده منو أي سجرين أيضا مركا قاضو أو نظام كدقو أو دستور كدقو سي مركاس أد أبد بادو آخرية أدون با إسلام مركانا هالراعين هودا كوا أن وحبا قرانين وايو وحي كسو هارا إلهي منهج كيسا وهو بني آدموي arrintaas marka ma aynaan yeelin taasu markaa waxay keentay in diintii ahayd nidaamka iyo dastuurka kaamilka ah oo runtii wax ka dhiman aysan jirin oo wadata siyaasadeedii iyo maamulkeedii iyo xukunkeedii oo wadata cadaaladeedii iyo garsoorkeedii iyo magaranaysaa maxkamadaheedii ee wadata tacliinteedii iyo tarbiyadeedii ee wadata dhaqaalaheedii ee wadata ciidankii iyo difaacii ee wadata siyaasadeedii khaarijka iyo international relationskii waynu ihimaalinay arrintaasu marka waxay keentay inaynu qarannimo iyo dowladnimo moodno xuub caaro ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illahi awliyaaa kamathali alcankabuuti ittakhadat bayta waina awhana albuyuuti labaytu alcankabuut low kaanuu yaclamuun waxay tusaale iyo mathal leeyihiin kuwa yacni ka raadinahaya gargaarka ilaahay sokadii iyo meel uusan ool gargaar iyo dowladnimo iyo cizi iyo awood iyo sharaf iyo istiqraar kuwa ka raadinahaya ilaahay sokadiisa waxay la mid yihiin caaradii markaa ayadu hoyga ka dhigatay xuubka caaro meel hoy laga dhigtana waxaa ugu liita xuubka caarada waa haddii ay garanayaan baa ilaahay arrintaasu markaa waxaa la oran karaa waxaa burburay ama ummaddu ay runtii ku fashilantay in ay dhisto laba tiir oo ah tiirarka dowladnimada iyo qarannimada iyo istiqraarka ummaddu ay ku taagan yihiin labadaas tiir oo kale ah tiirka cadaaladda iyo tiirka hoggaanka iyo leadershipka wanaagsan waayo waxaa keentay sababtaas manhajkii tiirarka lagu dul dhisi lahaa baynu markii horeba yaynu ihmaalinay oo ka leexanay oo ka inxiraafnay ilaahay aayad quraan wuxuu ku leeyahay in allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana samii'an basira ilaahay wuxuu idin amrahayaa inaad amaanada u dhiibtaan dadkii ehelka u ahaa culimadu waxay leeyihiin in kasoo aayadu ay caam tahay haddana waxay si toos ah uga hadlaysaa amaanada xagga xukunka iyo maamulka ummadda iyo shacabka la maamulahayo macnaha marka aayadda laga fahmahayo waxaa ka mid ah
يعني maamulka iyo leadershipku cid walba inaysan ehel u ahayn ee ay jiraan dad markaa ayaku ehel u ah oo ku mutaysanaya aqoon iyo magaranaysa cilmi iyo akhlaaq iyo diin iyo hufnaan iyo karti iyo dadnimo ilaahay marka wuxuu leeyahay dadka ayaka ah u dhiiba maamulka iyo hoggaanka haddii markaa xukun ay timaado aad isxukuntaanna isku xukuma cadaalad isku xukuma marka hoggaankiina waa la waayay wanaagsanaa iyo leadershipkii cadaaladiina warkeeda daah sababtoo ah manhajkii arrimahaas aynu ka dhaxli lahayn baynu ka tagnay waxaynu u hanqal taagnay waxa la yidhaahdo dimuqraadiya oo sideedaba aan ahayn nidaam ummad gaarsiin kara horumar nidaam waari karana aan ahayn haddii xataa aan lagu eegin aragti iyo fikir diini ah yani xaqiiqdiisu taa weeye taasna waxaa sabab u ah dadkii ay ka timid ee reer galbeedka ahaa muthaqafiintoodii qaar ka mid ah yaa arrimaha ku andacoonahaya nin la oran jiray Alexander Taylor oo u dhashay dalka Scottishka muddo taqriiban laga joogo 250 sano ayuu markuu baxthi dabcan sameeyay daraasa wuxuu la yimid yani theory iyo nadariyad iyo aragti oranaya dimuqraadiya sideeda ma ahan nidaam waari karaya oo ummad gaarsiin kara horumar waara ninkan marka wuxuu leeyahay waxay ku dul wareegtaa dimuqraadiya 8 marxaladood marka ugu horeysa ummaddu waxay ku jidhaabiyo wuxuu ku tilmaamay bondage isticmaar xukun adag oo dib badan oo dulmi ku salaysan ayaa ummaddu ku jidhaa markaasi waxay raadshaan buu yiri wax la yiraahdo makhraj iyo nasri bay waxay ka raadshaan God, religion and spirituality ilaahay diin bay u leexdaan arrintaas waxay kaga gudbaan buu markaa marxalad kale oo isku tilmaamay courage waayo dadku markuu diintiisa iyo qiyamkiisa u noqdo iyo ilaahay markuu u noqdo waxa imaanaysa geesinimadaas waxay keenaysaa buu yiri waxa uu ku tilmaamay liberty xorriyad waayo dadku waa midoobahayaan geesinima imaanaysa halgan baa imaanaya halgankaas wuxuu keenayaa ummaddu markaa inay xorowdo xorriyadaas waxa laga dhaxlayaa buu wuxuu ku tilmaamay abundance barwaaqa imaanaysa maamul baa imaanaya kala dambeyn baa imaanaysa cadaalad baa imaanaysa ummaddu markaa waa barwaaqoobaysa laakiin barwaaqadaas waa lagu kadsoomayaa buu la xagsan maayo waxa looga gudbayaa marxalad kale oo isku tilmaamay complacence ummadii markaa waxa soo baxaya kooxo ayagu doonaya inay barwaaqada uga faa'iideystaan si dulmiya oo sadbursi ah markaas waxa looga gudbayaa marxalad kale oo isku tilmaamay apathy akhlaaqdii baa si baaba'aysa ummadda kartideedii baa si baaba'aysa cadaaladii baa baaba'aysa kooxahaas isdhexyaacaya oo koox walba markaa ay doonayso inay maaragtay corruption iyo dulmi ku shaqeyso xaaladaas oo ummaddu ay arkaysa inay ku sii siqayso xaalad khatar oo keeni kara inay dib ugu noqdaan meeshii shalay ay ka yimaadeen haddana waa la ihmaalinayaa arrin kale looga gudbayaa xaalad kale oo isku tilmaamay markaa dependence waxaa soo baxaya nidaam dawli oo faashil ah oo ummadda intiisa badan ay ku qabto dulmi nidaamkaas marka waxaa loo noqonayaa adoon waayo dadka kartidii iyo midnimadii iyo qiyamkii iyo akhlaaqdii wax lagu sixi lahaa oo dhan baa baaba'ahay markaas dadku meeshii ay nidaamka sixi lahaayeen iyo dawladda waxay u noqonayaan adoon dawladii iyo nidaamka faashilka iyo xogaaga yar ee ummadda dhiigeeda cabaysa markaas waxa looga gudbaayaa buu yiri arrintii shalay laga yimid ee ahayd bondage-ka iyo tyranny-ga iyo dhibka iyo dulmiga iyo magaranaysa isticmaalka Soomaaliya hadaynu nahay dimuqraadiya xataa wayna gaarsiin weyday 10 sano 9 sano markaynu marayno waatii arrintu isku baahbaahatay nimankii ciidamadii qalabka siday baa meel cidla ka qaatay kuwii hore waxaba la oran karaa ilaa iyo xad waxay ka xishoon jireen diinta iyo magaranaysa culimada iyo dhaqanka wanaagsan nimankii askarta ahaa diinna waxay ahayd niman jaahilka isla markaana waxay la yimaadeen nidaamkii hore mid ka sii badan oo ah communism iyo shuuciya oo si toos ah markaa dagaal ugu qaaday diintii iyo qiyamkii iyo akhlaaqdii wanaagsanaa isla markaana culumadii laayay oo ka dhigay waxay laayaan waxay xiraan iyo waxay dalkii ka cayriyaan arrintaas waxaynu ku jiray muddo 12 sano waxaynu ka dhaxlay tiiha maanta aynu ku jiro oo ummadii marka ay kala garan laadahay inay tahay ummad xora iyo inay tahay ummad isticmaar ku jirta arrinta marka keentay Ethiopia runtii inay ka faa'iideysato 1977 waxay ahayd runtii waxay aragtay fursad
markaa siinaysa inay qarankii Soomaaliya burburiso waayo waxaa soo baxay ummad iyo qaran aad iyo aad u dhaawac uga soo gaaray xagga diintoodii iyo caqiidadoodii iyo qiyamkoodii iyo akhlaaqdoodii ummad baaba'day oo markaa ay sahlan tahay in si sahlan loo burburiyo walidaalika markaa Ethiopia عناصرتي استعماركو وقتigaas ay ka faa'iideysteen waxaana la oran karaa sababta keentay waxa weeye inxiraafkii ummadda ay ka inxiraaftay diinteedii iyo dhaqankeedii iyo akhlaaqdii iyo qiyamkii wanaagsanaa marka waxa weeye haddii ummaddu ay doonayso inay ka baxdo dhibaatada maanta ay ku jirto runtii waxa weeye inay isweydiiso marka ugu horeysa in la fahmo dhibaatada waxay tahay nasiib darrada maanta dhacday waxa weeye ummadii dadkeedii xataa aad ku tilmaami karaysay in dheergaradka aan thaqafiinta ahaa oo ilaa maanta aan fahmi karayn ummadatan dhibkeedu meesha uu magaranaysaa ka imaanayo marka xalku runtii waa inoo cadiya laakiin wuxuu u baahan yahay karti iyo caziim u baahan yahay إلهي سبحانه وتعالى آيات القرآن وحكوليه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي قوم مدوريه ومدربي مبدلوا مدوريه إلى أيكو أي لي مادان أسبابتي دورين لهيدو بدل الله مركا وحاوي أسبابتي إن الدوليسي وإنو قرانينا أسبابتي كيني كدا إن الدولي كبحنو ومركا أينو عزي إيا الشرف إيا من نما إيا استقرار إيا الدولي نما إنو قارنا وينو قران كرينا وحاوي أنكو إلهي أنقنا سبحانه وتعالى أنه دين تيني أنقنا أنكو قيم كيني أنقنا تاسا كيني كدا إنينو ضعفك إيا كالك قبنانتا إيا قبيالد إيا قرنك إيا دوليك إيا فلين مدى إنينو كبحنو وأينو من نماه الله ومركاس أينو ديرهنو وأينو كديرهنو إنينو هلقنق الله وينو أركينا xaaladda maanta lagu jiro iyo systemka iyo nidaamka shaqeynaya wax lagu dul dhisi kara ma ummaddu marka waxay u baahan tahay inay geesinimo la timaado inay markaa halgan gasho halgankaas inuu ilaahay idanki keeno ma garanaysaa xurriyad runtii iyo dawladnimo iyo istiqraar iyo inay awood u yeelato ayaheeda inay ka taliso oo markaa ay hesho dawladnimo ay ku naaloon karto laakiin waxa ka horeysa kartidii asbaabtii in la yimaado ayaa ka horeysa marka maadaama waqtigu ciriiri uu yahay intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh